بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه وسلم. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka oo taqaana ama maqashay magacayga maqal iyo muuqaalba. magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdi Axmed Caabi. waxaan ku noolahay in muddo ku noolaa dalka Ingiriiska. waxaan caawa aan jeclaystay in aan la wadaago ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto barnaamij gaar ah oo loogu magac daray barnaamijka isku daaweynta biyaha kulul iyo liinta. barnaamijkan oo muddo aan ku mashquulsanaa barashadiisa kadibna aan sameeyey tijaabooyin fara badan. insha allahu tijaabooyinkiina ay ka soo baxeen maxsuul wax soo saar ah. barnaamijkan biyaha kulul waxaa lagu daaweeyaa cudurro ku dhaco jirka bini'aadanka. jirka bini'aadanka waxaa ka mid ah xanuunada ku dhaco madax xanuun, indho xanuun, san xanuun ama sanboor ama caabuq, dhuun xanuun, wadna xanuun, keliya xanuun, beer xanuun, sanbab xanuun, sonkor xanuun, dhiigkar, calool xanuun, kaadi xanuun, xanuunka kansarka ee caloosha, xanuunka kansarka ee naasaha, lafagaraac, cagabalbal, caado wareer oo ku dhaca dumarka, malaria. intaas iyo in ka badan oo jirka ku dhaco ilaa 24 cudur waxaa walaalayaal lagu daaweeyaa liinta aad arkaysaan iyo biyaha kulul oo qandaca ah. biyo aad u zaa'id ma aha, waa biyo markii shaaha la karinayo saad aragtaan oo aan lahayn sokor, caleenna ma laha. liintana waa midaas oo laba qaybood laga dhigahayo. daawadan oo runtii ah daawo cajiib ah oo runtii qofkii isticmaalo waxyaabo badan ooga maarmahayo oo isticmaali jira awal, ama daaweyn ha ahaato ama waxyaabo kiimika ha ahaato uu oga maarmahayo. liinta mucjisadeedu waxaa ka mid ah markuu nabar kugu dhaco liinta haddaad marisid, mathalan sakiin baa ku jaxday, bir baa kugu dhacday, xabad baa kugu dhacday, markiiba haddaad marisid stop bloodding, dhiigga waa istaagayaa. sidee loo isticmaalayaa? goormeesaa la isticmaalayaa? duration-ka ilaa waqtigee la isticmaalayaa? su-aalahaas oo dhan gadaal bay ka imaanayaan. liintan waxaa la isticmaalaa aroortii calooshaadoo maran, salaada subax markaad soo kacdid. dadka caado waxaa u ah shaah iyo qaxway cabbaan, laakiin middan daaweynta ah waa ka duwan tahay. qofka aroortii markuu soo kaco isagoo waxba cunin, hadduu tarmuus haystana habeenkii uu biyahan qandaca ku shubahayaa. hadduu shaahi markaa u karkarana caleenta iyo sokorta iyadoo lagu dambe keli waa aragtaan, waa halkaasuu yaallaa. jeexaasaa lagu shubayaa, waa jeex ma aha hal xabo, jeex wuu ka kabanayaa qofka, wuu dhammaysanayaa. then koobkii labaad ayuu ku shubahayaa, wuu ka kabanahayaa. koobka saddexaad saasuu asna ugu shubahayaa. 3 koob iyo 3 jeex markaa qabtid, 1 saac kadib unbaa wax cuni kartaa, lagu ogolyahay. quraacdaadi wixii ilaahay kuwa calfay adaa yaqaana. 1 saac markaa sugta kadib inta halka saac
waqtiga aad sugaysay waxaad la kulmaysaa calaamado kala duwan. maxaa ka mid ah calaamadaha marka? calaamadaha waxaa ka mid ah markii aad halka saac ku jirtay waxaad arkaysaa sweat dhidid badan ayaa arkaysaa, yaa markii waa arkaysaa aad dareemaysaa. daaco badan baad arkaysaa, kaadi badan baad arkaysaa, neef badan ayaad arkaysaa ama dhuuso badan baad arkaysaa, saxaro badan baad arkaysaa. waxaad kaloo arkaysaa obataydka ama cuntadii oo kuu furantay markiiba. waxaad arkaysaa fudayd badan oo kuu yimid. waxaad arkaysaa wajac waxa la yidhaahdo confused body, marba meel lagaa qabto, meel daanka lagaa qabto, madaxa lagaa qabto, qandho yaryar oo aslada waxaan warba cudur cusub oo kuu keenay laakiin aan ahayn cudurkii uu yahay shaqadii linta ay qabanayso. intaas markaad aragtid shaqadii way bilaabatay. cuduradii jirkaaga ku jiro dhan waxay kaaga soo baxayaan ama neef ama aaryo ama dhidid ama saxaro ama kaadi. intaasoo dhan midba qayb bay ku baxaysaa. liinta waa idinkugu celinaya mar labaad si loo isticmaalayo waa aragtaan. waa jaxliin biyihii qandac ahaa halkaasuu iigu jiraa. koobka liinta saasaan ugu miirayaa. markaan saa ugu miiro waa kabanahayaa, saasaan u kabanahayaa, waa dhammaysanhayaa, halkaasaan dhigahayaa. koobka markaan dhammaysto mar labaadaan soo qaadanhayaa, haddana waa ku shubahayaa. biyihii waa ii yaalaan meesha, waa ku shubahayaa sidaas. haddana waa ka kabanahayaa, waa dhammaysanhayaa. marka saddexaad koobkii biyahan ku shubanayaa oo ii yaallaa, liintii baan saa ugu miirahayaa. intaasoo dhan markaan sameeyo hal saac wax ma cunisid. maxaa dhacaya marka? liinta maxay qabanaysaa? faa'iidada liinta leeda maxay tahay? biyahaanse kulul muxuu leeyahay? qofka bini aadanka jirkiisa markuu wax cuno wuxuu leeyahay faat wax la yidhaahdo. biyahan kulul shaqo kale ma qabanaysa. faatkaas 360 xubnood buu ilaahay jirkaaga ka koobay. 360 xubna xidid baa mara. faatska waxaa raadsanaysa biyaha kulul oo qantaca. liintana waxay raadsanaya wax infection la yidhaahdo dhan oo 24 cudur ah. waxay kaaga baxayaan marka intaasoo dhan inay kaaga baxdo dhidid, daaco, kaadi, dhuuso, saxaro. intaasay kaaga baxayaan. intaa markay saa kaaga baxdo su-aasha waxaa weeyaan cuduradan intee xilli ama intee waqti ayay ku baxayaan? sida daraasaadka aan ka soo baranay culamo khubro jarmalka ah oo daraasaad dheer sameeyey waxay sheegeen in 10 beri u horeyso uu madax xanuun kaaga baxayo. ilaa cudurka kow marka horeba madaxuu ka yimid, madax xanuun 10 beri buu kaaga baxayaa. isbaalka la yidhaahdo dhiigkarka 25 beri buu kaaga baxayaa. gaaska 10 beri buu kaaga baxayaa. waxyaabahan kale oo cagabalbalka ah, lafagaraaca ah, alerjiga ah waxay kaaga baxayaan 15 beri. waxyaabahan aniga hadda aan sheegahayo oo cudurada ay waqtiga ka baxayaan waxaan anigu ku soo sameeyey daraasaad ama practical aan ku soo sameeyey magaalo la yiraahdo Luuq Ganaane oo aan 3 bilood u fadhiyey. dadka magaalada ku nool iyo baadiyaheedana waxaa lagu qiimeeyey ilaa 50,000 oo qoys. dadkaasi maalintii aan u bilaabay dadka qaarkood ma aaminsanan waxaan inay ay wax si fudud ku baxay yihiin, laakiin si wanaag markii ay isticmaaleen waxay la kulmeen faa'iidooyin badan.
aniga barnaamijkan ma aha barnaamij lacag ma aha barnaamijkan barnaamij interest ma aha barnaamijkan waa barnaamij sadaqa jaariya ah aan ugu talagalay waalidiinteydii aabbahay hooyaday inaan sadaqa jaariya oga dhigo juhdi badan waa geliyey waqti badan waa wuu uga qaatay barnaamijkani fadalka alxamdu faa'iido badan oo dadka ay ii sheegeenna way ka heleen liintan maxay faa'iido leedahay waa su-aal isweydiin karo liintan faa'iidada leedahay waxaa weeyaan hadduu xanuunku qabto meel kastaba ha kaa qabto xanuunka madaxa kaa qabto caloosha ha kaa qabto wadnaha ha kaa qabto markiiba liin jeex kala goyso meesha xanuunka mari qadar 10 daqiiqo kadib insha allah wuu kaa baxayaa waana tijaabinay jilbaha dadka aan tijaabada aan ku qaadnay waxaa ugu badnaa dad jilbaha ka fadhiyey oo salaada aan tukan karin oo dhulka fadhiisan jiray markay isticmaaleen liintii jilbahana ay marsadeen falilaahi alxamdu waa ka kaceen dad badan aan hadda magacyadooda aan koobi karin liintaani faa'iidadeeda waxaa ka mid ah hadduu dibqalooc ku qaniino hadduu bahal ku qaniino hadduu aada kufto oo murgacato hadday xabad kugu dhacdo intaba liinta haddaa isticmaalso stop dhiig waa istaagayaa intana waa tijaabinay waa aragnay kanaacada baasha la yidhaahdo oo soomaalida aada u dhibtay oo dhibaato weyn ku hayso bal isku day meel kanaacada inaad gashid oo fara badan ka hor intaa gelin liintaa ismari jidhkaaga mari madaxaaga mari dhuuntaada mari meel kastaba mari nigis xiro dhex fadhiiso meesha kuma taabanayso korkaaga ma taabanayso waan tijaabinay waa soo aragnay kanaaca kuma cunayso waxyaabaha markaan biyaha cabaysid ka mid ah kanaacadan oo qofka liinta cuno ukun bay kanaacada reebtaa exkaas gadaal buu ka soo baxayaa waxaa ka mid ah dadka soomaalida xanuunada ugu badan oo hadda aan tijaabada kusoo sameynay gaaska baabasiirka liinta markaa cabdinuu kaa soo baxayaa si kale oo farsamo waa u isticmaali kartaa jeexaas liinta waa aragtaa marka aad qabaysanaysid bahashaan meesha wareega muwaladka ayaa marinaysaa markaa taabisa dabcan bal ayay leedahay waa boodaysaa haddana mar labaadaad ku celinaysaa waad boodaysaa mar saddexaadaad ku celinaysaa waad boodaysaa mar afaraad haddaad taabsiisid dawadii wareegeedii finish bal malis waxyaabaha mucjisada liinta ay leedahay waxaa ka mid ah cuncunka oo soomaalidu aada allergic indhaha dad baa ka qaba allergic qofki allergic indhaha ka qabo markiiba uu arkay inuu ay xoog yahay allergicadiisa liintuu qaadanayaa tif ayuu ka siinayaa halkaan tif ayuu ku siinayaa bel ayuu indhahaas ku siinayaa markiiba hurduuqa ayaa qabanayso wuu ka tegaya liinta waxaa loo isticmaali karaa oo cajiibka ah ilmaha markay xanuunsadaan oo limonia ama kolba-ariyo ama hergeb ay ku dhacaan markiiba liintaa la mariyaa waa lagu huuriyaa wuu ka boodayaa insha allahu faa'iidada waa wax la yaab leh oo cajiib ah oo liintan laga helayo laakiin dadka ma oga sababta magaalada luuq aan u doortay waxaa weeyaan luuq liinta ugu badan ilaa 300 ilaa 400 oo beer ugu yaraan ayaa agagaarkeeda laga beertaa liintan ilaa doolow ilaa gobolka gadow dheh ilaa baardheer dheh ilaa muxuu ahaa bu-aale dheh inta webiga umuro uu dhan liintan ayaa laga isticmaalaa maca daalika dadkii ma yaqaanaan sida loo isticmaalo faa'iidadeeda ma yaqaanaan taasi waxay keentay aniga waxaa igu kaliftay inaan aado magaaladaasi luuq oo runtii liinta faraha badan
oo ka baxda haddana dadkii si ay dhibaato weyn ay hayso oo ay aqoonsi u isticmaalaan falilaahi alxamdi markaan hadda u tagay oo aan barnaamijkii ku ballaariyey u sheegay way fahmeen magaalada luuq haddaad tagtid salaad subax marka la tukado dadkoo dhan waxay haystaan tarmuus biyo kulul maqaayadihii biyaha kulul ayaa la isticmaalayaa biyahaasi kulul marka hal saac kadib qof walba dantiisu ayuu qaadanayaa arrintaasi waa arrin ku cusub deegaankaasi aniga runtii markii aan sameynahayay daraasaadkii waxyaabaha aan islahaa dadkaygii oo aad u dhibaataysan oo abaaro badan ay soo mareen oo musiibo badan ay soo mareen oguma aan talagelin aniga in wax interest la yidhaahdo aan ka qaado ilaahay dartiis ayagana way ku caafimaadeen anigu ducaan baa laisoo gudbinahayay ducadiina waa soo qaatay insha allah anigu waa ka soo gudbay 22 waxaa Mandheera barnaamijkaasi waxaan arkay hotel la yiraahdo Mandheera Plaza groupka ugu horeeyay oo hotelka shaqaalihiisa baan u sheegay ayagina ma sha Allah way fidiyeen kadibna waxaan u soo gudbay magaalada Nairobi oo 23 aan imid muxaadaradii ugu horeysay waxaan ka qabtay masaajidkan hadda caawa laga duubahayo barnaamijka ilaa 5,000 oo qof ayaa fadhiday laba maalin ayaan ka sameeyay muxaadarada isku daweynta biyaha liinta biyaha kulul iyo liinta runtii dadkii aad bay u nafiseen way qaateen ma sha Allah haddana waxaan go'aansaday marka in aan suudiyaha la yiraahdo Salaf Media oo masjidka si isku dhex yaala inaan barnaamijkan aan ku qabto ama aan ku duubo sababtana waxa weeyaan malaayiin qof baa intaas ayaa ku xiran muxuu ahaa Salaf Media oo daawada barnaamijkayga aniga waxa ugu weynaa waxa weeye qofka markuu barnaamijkan sameynayo markuu ku caafimaado qof kale walaalkiis inuu u gudbiyo dadka aan maqal codkayga asaga inay codkiisa maqlaan dadka ay gaarsiiyaan waxaa jira dumar fara badan oo runtii xanuunka la caado wareerka uu ku dhacay intaan tijaabada ku jiray luuq oo muddo badan caadada ay ka maqnayd walillahi alxamdi ilaahay waa u soo celiyey caadada dad badan oo masaajidada fadhi ku tukan jiray way istaageen marka liintan faa'iidadeeda hadda baa la ogaaday adduunka dhaqaatiirta weligood waa sheegi jireen liintan waxay dhihi jireen biyaha ha la cabo dhaqaatiirta biyaha ha la cabo laakiin dhaqaatiirta biyo liin kulul ma sheegi jirin anigu markaan wixii aniga tijaabada u horeeyay isku sameeyey oo London intaan joogay aan sameeyey runtii wax badan baan dareemay sokorta xanuunka la yiraahdo waa laba nooca taaboonka la yiraahdo oo caruurta ku dhacdo iyo nooca kale oo injectionka dadka aan arkay dadkii sokorta tabletka qaadan jiray oo kaniiniga qaadan jiray waa 30 casho oga bixin bacdama aniga aan joogay 9 casho 3 bilood baan fadhiyay reportka la soo gudbiyay 85% dadkii qolada wixii gaas qabay 10 bari uga bixin wixii dhiig qabay 20 bay uga bixin wixii sokor qabay 30 bay uga bixin wixii cuncun waa 3 bari iyo 4 bari cuncunka ugu fudud ma garat wuxuu kaloo liintan idaawisa ila dagaalantaa fatska waxa la yiraahdo dadka buuran oo cayilan dad badan oo luuq markaan tagay aad u cayilna ayagoo waxaan arkay ma sha Allah dharkii oo dhan ay ka dhaceen xanuunkan la yiraahdo sanboorka ama caabuqa liinta dadka waxaa loo isticmaalaa ayaga biyihii cabidiisana gadaal baa wixii ka soo baxayaan ama waxay kaaga imaanayaan dhidid ama waxay kaaga imaanayaan daaco ama waxay kaaga imaanayaan saxaro ama waxay kaaga imaanayaan luuso intaas waxaa ku sii dheer xanuunka muxuu ahaa caabuqa oo sanboorka oo qofka maanta dhan
برق وكاي لينتو تفكسين يسنك يسنك زقون واتجايا أنا ممكن عندي مركب كاسوس بهالمر كلها واتجايا وحيابها صوتاً وحيابها أن تجرب وين قصص سمعني وأن سو أرجعني وحام جعله dadka daawanahayo oo shaashada iga daawanahayo in ay barnaamijkan ka faa'iideystaan dadka islaamka ah oo dhan oo walaalahood ahna in ay gaarsiiyaan qofka kale uu gaarsiiyo ajar buu ka helayaa asoo markuu gaarso ana ajarka qayban ka helaya waa fursad qaali ah leenti lacag badan kuuma fadhido biyihii lacag kuuma fadhido ninkii dhakhtarka oo ama ku soo gaarsiinahay lacag badan kuuma fadhiyo haddii intaas haddaa isku heshay oo aad ka faa'iideysan weydid waa dhibaato waxaan idiin sheegayaa liinta waxay leedahay miro dadka liinta ka shaqaysto biyaha waxaan u sheegayaa mirahaas aad arkaysaan dhibaatuu keenaa haddii laisku siido oo la jarjaro oo mashiinka la geliyo liinta oo midihii lagu siido maxaa dhacayo mirahan waxay sameeyaan dhibaato xagga ragga ah biyaha waxay ka dhigaan ragga fuunto waa khatar walow dadka qaarkood aqoon ahaan bay u lahaynba markay isku siidahayeen laakiin baaritaanka la soo sameeyay baasaas iniinta khatarteeda leeda waa laga bixiyaa markaad wixii kale aad isku soo shiidaysid oo liinta dhexdeeda waa ku shiidi kartaa laakiin iska ilaaliya hana roogina liinta marka keligeed aad isticmaasho oo dhuuqdo oo wax badan ama keligeed seeka ahaan u isticmaashid cillad waxay kugu keeni kartaa xagga dhiig yaraan waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha aan ku soo aragnay tijaabada oo dadka aan ku sameynay cudurrada ay liintan iyo biyaha kula dagaalama waxaa ka mid ah gooryaanka dadka intiisa badnaa 80% marka aan weydiinahayay xanuunka xaggu ka haya halkaana liiga dhigayha bogga oo bogga magaaliha tobanbir kadib qofkii saxaro buu keenayaa eer buu keenayaa dhiikar buu waa caafimaad dadka fadhiyey oo jilbaha ka fadhiyey dadka barara oo xanuun bararkaas keeno liinta markuu Soomaaliya waa nafisaya liintan marka waa wax mucjiso ah xanuun baa ku qabtay adoo guriga dhex fadhiyo markiiba intaa barasmal raasana liinta soo qaado waa inaad ismarisaa meesha jirka oo dhan marisaa madaxa mari kale adigoo socdo ayaad talaantootay waa murqacatay liinta markiiba mari adoo isbitaal iyo meel iyo wax kale la aadin liinta neerfaha dadka salalka qaba xanuunka gariirka saa u gariiro waa la mariyaa hadduu nabar meel uu kaaga soo baxay oo aragtay inuu bogsoon waayo xanuun kugu hayo waa la mariyaa si fiican baa loo mariyaa habeenkii waxaan kula dardaarmayaa dadka waayeelka ah odayaasha iyo haweenka markay saxanayaan xabad liin ha soo jeexdaan waxaa laga yaabaa qaarkood dhabarka in laga hayo waxaa laga yaabaa qaarkood jilbaha in laga hayo waxaa laga yaabaa qaarkood murqaha laga hayo waxaa laga yaabaa qaarkood cagabalbal inay qabaan waa la ismariyaa habeenkii gees ilaa gees indhaha jirka subaxii waxaa soo baxaysa adigoo maasha allah ah fay waxyaabahaasoo dhan marka liintan ayay ka dhalatay waa wax mucjiso ah aniga runtii jaabkayga kama baxdo waayo bini aadan baa ahay bir baa igu dhici karto waxaa waa ku fikiraa haddii ma haysto muxuaha markiiba emergency ama isbitaal ima dhabo waa markiiba waa inaan liinteedii waa wataa baasheedii yareed mindida waa inaan markiiba ismariya wax dhib ay u keenayso islaamaha ma jiraan kuwa uurka leh waa wax nadiif ah xataa dadka TB-da qabo oo daawada qaato hadday isticmaalaan inuu wax u zaa'idsamayaan wax dhibaato uma keenayso effect inta loo qaan joogo dad TB qabo su'aalaha soo weydiiyaan kuwa dhaqatarkii wala cabbi kara wax dhibaato ma laha liintan marka waa mucjiso ilaahay xaggiisa ka timid
oo maasha allah ah oo dadkiina ay ku ladnaadeen dabcan wadankii aan ka imid ahaa oo hadda oo gado la yiraahdo dadku way is wada gaarsiiyeen telefoon ba isku soo wada gaarsiiyeen anigu runtii boqolaal qof aan maalintii isoo jirta anoo luuq joogo leeyahay doctor waa maqalnay lintaas nin baan soo gaarsiiyey ninkiina aad buu noogu amaanay hayeeshaa codkaagaan rabnaa konton qof 60 qof aan ku fadhinaa xalqa weeye inaad adna noo sharaxdid qola kala ku soo wacaysa anagu waa isticmaalay ما شاء الله أنا قاس بنقبي وايقا بحي أنا ذكر بنقبي وايقا بحي أنا على الحنون بنقبي وايقا بحي ما شاء الله تذكر وذكرتي إلى هدنا وحربا دتك مقلة oo islaamka ah meel kasta joogan inay barnaamijkan dad kale u gudbiyaan wax dhibaato ah oo keenaysa malaha wali qofkii oo ay wax shaki ay kaga jiraan aniga facebookayga waa abdi way isoo gudbin karaan to ilaahay yiraahdo teleefankaygana waxay ku arki karaan muxuu ahaa facebooka oo ingiriiska ah waxaan jeclahay dadka Yurub aad ugu nool oo qabo xanuunada kala duwan oo neerfaha ah xanuunada kala duwan oo cancerka iyo kamid yihiin waxa soo dhan aad bay linta ugu fiican sababtoo waxaan ku tijaabiyay dhowr qof oo qalliin loo waday operation loo waday dadka waayeelka ah oo runtii muddo badan xanuuno badan la fadhiyay leenta markay daa'imaan insha Allah way fiicnaanayaan waayeelada dumarka sidoo kale way fiicnaanayaan dad badan oo aan la kulmay oo Hindiya aad for example xanuun bay u aadaan xanuunkii lacag baa fara badan baa soo baxda haddana ayagu sidooda ku soo noqda laakiin leentan waa garantiya qofkii isticmaalo waa antibiotic ajaa'ib ah waxaan baabi'iyay qofka soo hadda imaqlaa daawana haduu meel u ka xanuunsanaya oo jirkiisa kamid ah jeexninta ha qaato ha mariyo ha ismariyo ha iskuro ha fiiriyo dadka nervionka oo xanuunsan nervaha ha ismariyaan habeenkii iyo maalintii waxyaabaha leentani luuq markaa imaanayay intaan waa 10 xabbe 10 kan xabo oo hadda saaran luuq waxa la gaday 1 shilin hadda markaan ka soo tagayayna waxa la gadayay halka xabo 1 shilin taas macnaheedu waxa weeyaan faa'iidada dadka ummadii oo dhan baa isticmaalaysa inka soo yiraahdeen abi liinta uu ku qaaliyay adna waxaan leeyahay liinta ma qaaliyay faa'iido badan baa haysan waxa yeelay dad badan oo u safri jiray xamar ayaa ka baaqanay dad badan oo Nairobi u safri jiray ayaa ka baaqanay dad badan oo Mandera u safri jiray ayaa ka baaqanay waxaan tala ahaan ku siinaa marka hore intay dibadda aadin balleyntaan ha isticmaalaan sababta leenta u isticmaalay waxa anigu dhowr qof nin laba qof waa arkay oo xanuun operation ah qalliin ah Nairobi iyo Hindiya aan u sheegay tala bixin aan siiyay inta isticmaalahayeen 14 way gudahoodina xanuunkii ay dhahan waa ka caafimaadeen ma sha Allah mana aadin magarat waa ka caafimaadeen waana run xanuun ka gudaha ka soo baxo hadduu xataa yahay ama bura ama wax yahay leenta mari kadib markaa xanuunku inuu jiray in kale waxa lagu cadeyn karaa waa ina scan ama raajta asmaysid marka tag laakiin ka hor adoo qarash iyo waxba ka bixin dhibaato kala marin waxaad isticmaashaa muxuu ahaa leentaas aamin intaasna waxaan u siinayaa dadka xanuunsan waayo dadka qaarkoodba dee ma awoodaanba dadka ma awoodaan marka hadda dad badan oo qarash dad u dalbi jiray ama dibadaha u keeni jiray hadday liintooda isticmaalaan hadday wax qarash oo ku baxayo ma laha liintaasi qof kasta waxaan oran lahaa gacanta ha ku qaato suuxu markuu gurigiisa ka soo baxayo sababtoo wax ku qabsan doono nobody knows qof og ma laha marka haddii wax ay ku qabsadaan
markiiba intaad dilacso dhagax baa kugu dhacay dhiig baa kaa soo baxay warkiiba ku qabo waa kuftay xabad duulayso meel ay ka timaad aba ninbaa bac kugu tiri liinta mare wax kastaba waa laga gudbay marka meeshii muxuu ahaa alcohol iyo waxyaabaha qofkaas loo isbitaal loola carari jiray liintaas ninka haysto faa'iido weyn buu haystaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idin ka codsanahayaa in aad sheer garaysaan barnaamijkan dadka walaalihiin ah oo aan maqlana aad u sheegtaan dadka waayeelka ahna aad u sheegtaan dadka ciyaalka yaryar for example oo ama neerfaha qaba ama qaba muxuu ahaa limoniyada ku dhacaysa malaariyada ku dhacaysa marsiiya wixii liinta cabi karo biyahaas kule liintaasi waa daawo maasha allah ah tijaabadeedii waa la soo sameeyey dadka maqlahayo oo dhanna arrintaasi islaamka ha gaarsiiyaan anigana kolleyti ilaahay baa abaalmarin ilaahay baan ka rabaa dadka kama rabo wax dhaqaalo leh wax interest kale kama rabo wax barnaamij kale dana kama rabo danahayga waxaa waaye qofka muslimka markuu caafimaad helo asagana waxbuu istari karaa dadkana waxbuu tari karaa soomaaliya oo burburka adag soo martayna oo dadka aan dhaqaalo aan haysanna waxbay u taraysaa asagoo gurigiisa jooga hadduu ay daawo u tahay maasha allah marka wax lagu tilmaamo lama yaqaano waxaan barnaamijkayga kusoo koobahayaa ilaahay ha idin xafido islaamka oo dhan allaha u gargaaro dadka dhibaataysan allaha caafimaad siiyo qof kastoo muraad buu leeyahay muraadkiisa allaha u sahlo anigana muraadkayga waxaa waaye ilaahay agtiisa inaan darajo aan ka helo wax kale oo aniga jannata firdowsi igu soo duceeya aniga iyo ehelkayga xaasaskayga ciyaalkayga muslimiinta oo dhan meel kasta ay joogaan intaas haddaad igu soo duceysaan anigana waa idiin soo duceynayaa waxaana rajeynayaa inaa hadda wixii ka dambeeyana tababar badan aan sameeyo oo dadka bacdama anigu aan laabanahayo meesha aan ku laabanahayo oo ah meeshii aan ka imid waxaa la rabaa dadka su-aalo badan hadda aniga habeenkii iyo maalintii intaasoo qof ayaa telefoon igu soo waca marka qaar aan maqal baa jiro qaar aan weli arrinta aan soo gaarin baa jira dadka kale oo aan u sheegay ama videogan daawada ama salaf mediahan daawada dadka islaamka o dhan ha gaarsiiyaan waa cabdi axmed caabi oo mar labaad ileh soo dhawaado assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu